Ku soo dhawaada daawadayaal xogo iyo xaqiiqooyin ku saabsan bilyaneerkii caanka ahaa ee reer Nigeria Femi Otedola. Femi Otedola waa ninkii ugu taajirsanaa ama ugu hantida badnaa ee dalka Nigeria, inkastoo hadda la sheego inuu ka dhaqaale badan yahay Amiko. Femi wuxuu dhashay sanadii 1962 wuxuuna ku dhashay gobolka Oye ee dalka Nigeria, waxaana dhashay hooyadiis Odocha. Waxa asiga la dhashay ay walaalo yihiin 3 caruur oo la kala yiraahdo Ayokenlo Otedola, Otimo Otedola iyo Moyowaye Otedola. waa shakhsi haleeya oo dhib iyo dheef u soo maray sidii guul wax ku ool u gaari lahaa. Sidoo kale wuxuu ku soo barbaaray kuna dhashay guri Kristaan ah, sidaa aadeed wuxuu mar walba ku adkaa aaminsanaanta diintiisa Islaamka, wuxuuna ku dadaalaa mar walba inuu soo islaamiyo reerkiisa. Wuxuu ka qalin jebiyay jaamacadda Lagos, halkaasna wuxuu ka qaatay shahaadadiisii koowaad ee xilligii waxbarashada sanadii 1985. Femi Otedola wuxuu bilaabay xilligaas ganacsi aasaas u noqday noloshiisii xayawaaned. dadaal badan kadib, Femi Otedola wuxuu helay qiyaastii suuqa naftada ugu weyn ee dalka Nigeria, balse nasiib xumo waxaa soo wajahay sanadadii dambe hoos u dhac weyn, waxaana la sheegaa inuu ku yimid hoos u dhac gaaraya ilaa 1.2 bilyan. isla waqtigaas wuxuu sameeyay fikradda maanta ka dhigtay taajirka caanka ah ee reer Nigeria. waxaa la yaab leh inuu si dhaqso ah u noqday bilyaneer iskana guday hoos u dhicii shirkadiisa ku yimid. sidoo kale Femi Otedola waa deeq-bixiye gacantiisu furan tahay, asigoo ku deeqay dadka taagta yar ee ku nool waddankiisa Nigeria lacag dhan 18 milyan. Otedola waa shakhsi ku hanweyn ganacsigiisa inuu ballaariyo, wuxuuna sidoo kale jecel yahay tabarucaadka iyo dadka dhibaatadu wajahday. waana shakhsi ay ku faanaan dadkiisa reer Nigeria. Otedola waa shakhsi hadda laga wada yaqiin Nigeria. shakhsigan waxay dadkiisa ku naaneysaan ninkii ganacsiga, maadaama uu ganacsi ka taajiray yahayna aad u nasiib badan.